Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal xiiso badan oo ku saabsan jasiiradda Suqatra. Magacaygu waa Cabdixafiid Bashiir. Halkanina waa kanaalka Cilmi Baaris. Halkani waa jasiiradda Suqatra, mid ka mid ah jasiiradaha ugu bilicda wanaagsan adduunka. Waxa ay ku taallaa gudaha Badweynta Hindiya, dhanka marinka Gardafu ee dalka Soomaaliya. Jasiiraddan aadka u quruxda badan waxay dalka Soomaaliya u jirtaa 250 kiiloomitir, halka dalka Yemen ay u jirto 370 kiiloomitir. Jasiiradda Suqatra waxay ka kooban tahay 6 jasiiradood oo kala ah Kucaali Fircoon, Cabdalla Koori, Samxa, Darsa, Saabuuniyaad iyo Suqatrada Weyn. Jasiiradda ugu dhow jasiiradahan ee Cabdalla Koori 80 kiiloomitir oo keliya ay u jirtaa magaalada Caluula ee gobolka Bari dalka Soomaaliya. Inta badan nolosha dadka dega jasiiraddan Suqatra waxay ku tiirsan tahay kalluumaysiga iyo qaar bulshada ka mid ah oo dhaqda xoolaha nool. Waxaa ku nool halkan dad lagu qiyaasay 60,000 oo qof. Xukun ahaan jasiiraddan waxay hoos tagtaa dalka Carbeed ee Yemen. Suqatra waxaa lagu magacaabaa jasiiraddii cajaa'ibta maadaama ay leedahay dhir iyo xayawaanno aan laga helin meel kale oo adduunka ka mid ah. Hay'adda dalxiiska adduunka ayaa diiwaan gelisay in ka badan 250 nooc dhir ah taasoo u gaar ah jasiiraddan cagaaran, iyo 200 nooc shimbiro ah aan laga helin adduunka intiisa kale. Marka la fiiriyo taariikhda fog ee jasiiraddan, waxaa ka talinayay dad Soomaali ah oo ka mid ahaa salaadiintii Soomaaliyeed. Abbaaro 1480kii waxaa taliska la wareegay saldanadii Mahra ee ka talinaysay qaybo ka mid ah dalka Yemen. Intii u dhaxaysay 1507 ilaa 1511 waxaa jasiiradda xoog kula wareegay gumaystihii Boortaqiiska. Kadib iska caabin uu kala kulmay dadkii deganaa deegaanka, waxaa gacan ku haynta dib ugala wareegay saldanadii Mahra ee dalka Yemen. Sanadii 1834 Ingiriiska ayaa isku dayay inuu iibsado jasiiraddan Suqatra, laakiin uma aanay suuro gelin arrintaasi. Muddo kadib sanadii 1880kii suldaankii xukumayay jasiiradda ayaa Ingiriiska u oggolaaday inuu soo galo jasiiradda, isagoo ujeedka suldaanku ahaa inuu Ingiriiska gaashaan iyo difaacba uga noqdo saldanadihii Carbeed ee loolanka kula jiray saldanadii Mahra ee dalka Yemen. Sidaas ayuuna gumaystaha Ingiriisku muddo ku maamulayay jasiiraddan Suqatra. Sanadkii 1967 ayaa la baabi'iyey nidaamkii saldanadda ee jasiiradda Suqatra, waxaana la hoosgeeyay koonfurta dalka Yemen oo xilligaasi xornimo qaadatay. Xilligaasi Soomaaliya ayaan mar aan fogeyn xornimada qaadatay, waxaana ku gadaamnaa dhibaatooyin ka weyn raadinta dhulka Suqatra. Waxaa baadigoob loogu jiray sidii xabashida Itoobiya looga xorayn lahaa dhulka Soomaali galbeed iyo xoraynta qaybta Kenya raacsan ee NFD. Xilligaasi laguma baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay jasiiradda Suqatra iyo marinka Gardafu. Soomaaliya iyo Yemen xiriir wanaagsan oo walaaltinimo ayaa ka dhaxeeyay, mana jirin wax muran isqabsi dhuleed ah oo la soo wariyay xilligaasi. Sidaas ayay jasiiradda Suqatra ku sii jirtay gacanta dalka Yemen. Dagaalkii 1977 ee Itoobiya iyo Soomaaliya, Jamhuuriyadda Koonfurta dalka Yemen ayaa la safatay dalka Itoobiya, taasoo aad uga xanaajisay dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Caro arrintaasi ka dhalatay awgeed, dowladdii Soomaaliya ee xilligaasi ayaa sheegatay lahaanshiyaha jasiiradda Suqatra ee raacsan dalka Yemen. Kadib dhexdhexaadin ay samaysay Jaamacadda Carabta, waxaa lagu guulaystay in xiisadda Soomaaliya iyo Yemen hoos loo dhigo. Sanadii 1990kii waxaa midoobay waqooyiga iyo koonfurta dalka Yemen. Suqatra waxay ka mid noqotay midowgii dalka Yemen, waxaana looga talin jiray magaalada Cadan, halka markii dambe laga xukumi jiray maamulkii Xadramout. Sanadii 2013 jasiiraddan Suqatra waxaa loo sameeyey maamul iyada u gaar ah, laakiin awaamirta guud ka qaadanaya dalka Yemen. Ilaa iyo maantadan, jasiiraddan lagama samayn wax horumarin mashaariic ah. Jasiiraddan waxay ku taallaa bartamaha halka ay ku kulmaan labada badood ee Badda Cas iyo Badweynta Hindiya. Jasiiraddani waxay marin muhiim ah u tahay badeecadaha iyo maraakiibta u kala gooshaya qaaradaha adduunka, waxaana il gaara ku haya waddamada Shiinaha, Maraykanka, Ruushka iyo Jabaan oo ay maraakiibtoodu halkan soo maraan. Suqatra waxay la kulantay isku dayo waddamo kale oo doonayay inay dhulkeeda qabsadaan. Dalka Imaaraadka Carabta
ayaa sannadii 2015 gudaha u soo galay jasiiraddan isaga oo wata gaadiid dagaal. Kadibna waxa uu meesha ka saaray nidaamkii jasiiraddan wakiilka uga ahaa dalka Yemen. Imaaraadku wuxuu bilaabay in geed ka mid ah geedaha ka baxa jasiiraddan uu ku rarto doomo si uu u geysto dalkiisa. Geedkan oo ah geed cajiib ah oo aan laga helin waddamada kale ee adduunka. Tani ayaa fadeexad ku noqotay Imaaraadka Carabta kadib markii warbaahinta caalamku ay baahisay faragelinta uu ku hayo jasiiraddan Suqatra. Intaas kadib, ciidamadii Imaaraadka Carabtu waxay isaga baxeen jasiiradda, waxaana dib ugu soo laabtay nidaamkii dalka Yemen. Jasiiraddan aadka u cagaaran ee Suqatra waxay ka mid tahay jasiiradaha ay leedahay dalka Soomaaliya, laakiin ilaa iyo maantadan waxa ay gacanta ugu jirtaa dalka Carbeed ee Yemen.